السلام عليكم soo dhawow libaax iyo libaaxad maanta waxaan doonayaa inaan kuu sharxo filim lagu magacaabo Hitman Agent 47 balse ka hor intaan u gudagelin muuqaalka iyo ogolow inaan ku weydiiyo su'aal aad u fudud balse u baahan maskax maalin adiga oo socda waxaa ku afduubtay caalim ama professor ku takhasusay chemicals wuxuuna kuu sheegayaa kaliya haddii aad doonayso inaad ka baxdo goobtaas inaad kala doorato saddexdan albaab midkood si aad noloshaada u sii badbaadiso albaabka koowaad waxaa ka dambeeya nalal sensor ah oo kaliya ku shaqaynaya dhaqaaqaaga yacni dhaqaaqa bini'aadanka haddii aad daartan waxay soo diinayaan nitrogen halis ah albaabka labaad waxaa joogo nin dilaa halis ah oo soo dilay 317 ruux sanadkii 1836 halka albaabka saddexaadna uu ka dambeeyo dareero kuleel ah haddii aad u dhawaatana jirkaaga hal mar uu isbedelayo waxaan rajaynayaa in su-aasha aad fahantay kana jawaabi doonto ogoona waxay u baahan tahay kaliya inaad u fiirito si maskaxiyan ah albaabka aad dooratana soo raaci sababtaad u dooratay fikirkaagu waa inoo muhiim aynu soo noqono muuqaalkeena dhacdo filimku waxay ku bilaabanaysaa sanadku markuu ahaa 1967 goor uu dhakhtar lagu magacaabo Netfink uu samaynayo daawo ama aalad qofka ka caawinaysa inuu helo tamar dheeraad ah kuwaasoo aan lahayn wax naxariisa kaliyana ay tahay wixii loo diray inay ka dhigaan dhan yacni muhiimadda ugu weyn ay tahay inaysan ka labalabeen howsha loo diro sida muuqatana dhakhtarku in muddo ah kadib waxa uu soo saarayaa dhowr shakhsi oo leh awoodda caynkaas ah laakiin intaa wixii ka dambeeyay isagana lagama helayo wax xog oo isaga ku saabsan wuxuuna in muddo ah oo kooban kaga qarsoomay caalamkii oo idil maadaama uu dareemay culays badan in muddo ah kadib oo aan weli dhakhtarkii laga helin wax xog ah koox kale oo culimo ayaa iyaguun isku dayay inay bilaawaan mashruucii uu dhakhtarka sameynayay si ay dunida mar kale ugu baahiyaan laakiin dooqoodii koowaad ama howlgalkoodii koowaad way ku fashilmayaan taa beddelkeedana waxa ay sameynayaan urur iyagoo markaana diiradda saaraya kaliya sidii ay ku heli lahaayeen xogtii iyo sirtii ka dambeysay in dhakhtarka ay howshan u fududaato iyaga oo weliba hogaamiyey ka dhiganaya ninkan oo lagu magacaabo Alberto 6 sano oo baaritaan ah kadib ururkii weli ma aysan soo helin wax natiijo ah xitaa ma aysan soo helin sawirka dhakhtarka balse nasiib wanaag mar qura waxa ay helayaan sawir gabar uu dhalay dhakhtarkii taa oo lagu magacaabo Katia laakiin laxdada waxa uu soo muuqanaya shakhsi kale oo aysan ba aqoonin heebtii waxa uu dhacayaa kombiyuutarkii oo xogta ku kaysanayay Alberto isaga oo kaliya adeegsanaya teleefankiisa daqiiqado kadib Alberto markii uu dareemo dhaqdhaqaaqaas waxa uu isku dayayaa inuu soo aado dhinacii xarunta isaga oo hore u soo kaxaysanaya gawaaridii iyo ilaaliyaashiisii markii uu soo qaato gawaaridiisii ninkii qarsoona haddana mar qura waxa uu la qarxinayaa mid kamid ah gawaaridii la socotay Alberto isla markiiba waxa uu ogaanayaa in shakhsiga gaariga la qarxiyay uu yahay isla shakhsigii jabsaday kombiyuutarkiisa in cabaara kadibna markii uu si dhib ah ku soo gala xaruntii oo uu gudaha yimaado waxa uu isla markii arkayaa in waardiyaashii oo idin la wada dilay sakama kadibna waxa uu u soo muuqanayaa shakhsigii qarsoonaa ee jabsaday kombiyuutarkiisa sidoo kalena la qarxiyay mid kamid ah gawaaridii la socotay isla laxdada Alberto waxa uu ogaanayaa in lagu magacaabo Agent 47 sidoo kalena uu yahay mid kamid ah dadkii uu soo saaray dhakhtarka ee uu sameeyay tabarta Agent 47 isla markiiba waxa uu bilaabayaa inuu u handado Alberto isagoo u sheegaya in kaliya uu ka doonayo in farta uu ka saaro feelka gabadhii dhakhtarada yacni xogteedii oo idil muddo kadibna waxa uu qaadanayaa dhammaan macluumaadkii yaalay meesha intaa kadibna markii uu xarunta ka baxo wuxuu ku dhajinayaa qarax waardiyaashii joogay banaanka markii ay maqlaan jugta gudaha waxa ay isku dayayaan inay u soo cararaan gudaha laakiin Agent 47 ama dilaagii 47 waxa uu bilaabayaa inuu hal u toogto ugu dambeynna waxa uu isaga baxayaa goobta isagoo aysan waxba soo gaarin dhanka kale ururkii markii ay maqlaan geerida hogaamiyahoodii Alberto waxay bilaabayaan inay raadiyaan xogo oo ay isku dayayaan inay soo qabtaan shakhsiga aysan baheebtiisa aqoonsan ama sidoo kale ay badib u helaan macluumaadkii gabadha dhanka kale Katia iyaduna markaan waxay ugu mashquulsan tahay baaritaano ay ku doonayso inay ku ogaato halka uu joogo aabaheeda si ay ula midoodo muddo yar kadib markan iyadoo banaanka u soo baxday hal mar waxay ka war helaysaa shakhsi ilaala ka haya oo daba socda isla markiiba waxay soo galaysaa goob dukaan ah iyadoo oo shakhsigii meesha joogana si degdeg ah uga qaadanaysa passport kadibna waxay isaga baxaysaa goobta intaa kadib dilaagii 47 isaguna markan waxa uu soo safrayaa Germany wuxuuna imaanayaa goob gooni ah oo aysan cidina joogin intaa kadib waxa uu bilaabayaa inuu damiyo ama uu hakin gareeyo dhammaan kaamirooyinka ku xiran dalkaas si kaliya xogteeda u hela gabadhii dhakhtarada ee Katia halka iyaduna isla laxdada ay ku soo laabanayso gurigeeda iyadoo weliba si degdeg ah u soo galaysa maadaama ay ka shakisneed shakhsigii daba socday in cabaara kadibna waxay bilaabaysaa inay dib u xasuusato aabaheeda iyadoo isla markiiba dareemaysa murugo balse isla daqiiqada waxay caawaysaa daawo si ay u seexato dhinaca kale Agent 47 isaguna markaan si lama filaana waxa uu sawiradii Katia ka arkayaa kaameradii ku xirneed baskii ay raacaysay isla markiiba waxa uu gudagalayaa inuu raadiyo goobta iyo meesha ay degan tahay laakiin lama filaan waxa uu soo galaya kool uga yimid maamuladiisa ama manageradiisa iyadoo doonaysa inay u sheegto in ururkii uu hogaaminayo Alberto inay ogaadeen xogtiisa ayna sidoo kale soo daba dhigeen shakhsi kale si isagu u dilo waxayna u sheegaysaa inuu haysto muddo 48 saacadood ah ayna waajib tahay inuu ugu keeno Katia isla markiiba dilaagii 47 waxa uu gashanayaa dharkiisa isagoo uu ku wajahan aagii ay joogtay Katia markii uu soo dhawaado gurigeeda Katia isla markiiba waxay dareemaysaa dhaqdhaqaaq iyo in qof uu ku soo wajahan yahay dhinaceeda isla markiiba waxay xiranaysaa boorsadeeda kadibna waxay isaga baxaysaa guriga
guriga kahor inta uusan u imaanin dilaagii 47. isla laxdada markii ay u soo baxdo banaanka waxaa ka hor imaanaya ninkan oo lagu magacaabo John. waa shakhsigii daba socday oo ay ka shakisay markii ay saarneyd baska. waxa uu sheegayaa inay u soo direen ururkii uu hogaaminayay Alberto, sidoo kalena uu doonayay inuu ka badbaadiyo dilaaga 47 oo kusoo wajahan dhinaceeda. isla waqtiga John oo aan dhamaysaninba hadalka waxa uu milicsanayaa dilaagii 47 oo u soo socda dhinacooda. isla markiiba waxa ay isku dhex dagaalayaan meeshii ilaa John oo isku dayay in goobta oo dhan ay ka baxsadaan iyaga oo soo raacaya gaari. laakiin dilaaga 47 oo adeegsanaya awoodiisa waxa uu la soo baxaya taleefankiisa isaga oo mar qura meel fog ka tooganaya darawalkii kaxeynaya gaarigii ay saarnaayeen John iyo Katia. laakiin nasiib wanaag labadoodu haddana waxa ay imaanayaan safaaradda Mareykanka si ay ugu mangalaan. John isla markii uu soo istaagay iridda waxa uu xabad u ridayaa ceerka si waardiyaashu ay ugu soo xoomaan oo ay ugu celiyaan dilaaga 47. daqiiqada kadibna sidii ay doonayeen waxa la soo gelinayaa gudaha, balse labadoodu waxa lagu kala xirayaa laba qol si loo kala wareysto. dhanka kale dilaagii 47 isaga haddana waxa uu soo galayaa safaaradda, balse waxa celinaya waardiyaashii maadaama uu watay hub. intaa kadibna waxay geenayaan qol si loo wareysto. daqiiqada kadib markii uu yimaaday dambi baare si uu u weydiiyo sababta uu hubka ula soo galay safaaradda, waxa uu dilaagu ugu jawaabayaa si jees ah isaga oo mar qurana ka dafaya hubkii goobta yaalay. intaa kadibna waxa uu tooganayaa raggii joogay meesha, isla markiina waxaa qaylinaya batoonkii gurmadka degdega ah. John waxa uu ogaanayaa in dilaaga 47 uu soo galay safaaradda, isla markiina waxa uu tagayaa Katia si ay meesha uga baxsadaan. dhanka kale dilaaga isaguna waxa uu soo xiranayaa dharkii waardiyaasha si aan loo fahmin. intaa kadib John iyo Katia waxa ay soo qaadanayaan iyaguna markaan gaari. daqiiqada kadibna markii ay yimaadaan goob ay moodeen inay aad uga fog tahay goobtii, waxay hal mar uun ka war helayaan dilaagii oo saaran dabaqa aad u dheer kadibna isku dayaya inuu toogto. intaa kadibna iyaga oo doonaya inay meesha kasii cararaan mar qura dilaagu waxa uu haddana Katia xabad uga dhufanayaa garabka. in muddaha kadib John iyo Katia markaan waxa ay imaanayaan hotel aad uga fog goobtii si Katia uu ugu daaweeyay dhaawaceeda. in yar kadibna John waxa uu tilmaamayaa xogta iyo halka uu joogo aabaheeda. isla markiiba waxa ay soo qaadanaysaa qariirad si ay u cabirato makaanka, isagoo haddana uu sii sheegaya in aabaheeda uu sameeyey awood dareensido ah oo ay ku dareemayso waxa ku soo socdo. balse John intuusan ba hadal ka dhammaynin sikadiisa waxaa qolka ugu soo galaya dilaagii 47. wuxuu isla markiiba tooganayaa John kadibna waxa uu kaxaysanayaa gabadhii dhakhtaradda ee Katia. ururkii Alberto iyaguna markii ay ogaadaan xaaladda waxay go'aansanayaan markaan inay dilaan Katia kahor inta aysan xogta aabaheeda u sheegin dilaagii 47. isla xilligaana waxaan aragnaa Katia oo joogto goob cidlo ah. dilaagii 47 markii uu yimaado waxa uu u sheegayaa inuusan doonin in iyadu uu wax dhibaato ah gaarsiiyo, balse kaliya ay u sheegto halka uu joogo aabaheeda. laakiin Katia oo markaa dareemaysa awoodaheeda waxay dib xasuus u galaysaa ilaa waagii ay yareed iyadoo milicsanaysa mar ay wada joogeen iyada iyo dilaagan 47 iyo aabaheedba. laakiin daqiiqada waxay arkaysaa aabaheedu ugu tagay goob cidlo ah. intaa kadibna dilaagii 47 oo aanan rabin inay maaweeliso waxa uu ku shidayaa matoor hawo ah isagoo u sheegayay in hadda ay isticmaasho awoodda uu sameeyey aabaheed kahor inta aysan dhiman. isla markiina iyadoo walwalinba waxay si wacan u isticmaalaysaa awoodeedii iyo tamarteeda iyada oo marka hore iska furaysa xariggii ugu xirnaa lugaha iyo gacmaha. intaa kadib markii ay ka soo baxdo meesha waxa ay soo dabaraacaysaa dilaagii si ay ula hadasho, balse waxa uu sheegayaa keliya inay tahay sidiisa camal oo ay leedahay awood iyo tamar ay wax walba isaga difaaci karto. wuxuuna u sii sheegayaa in magaceeda Katia uu yahay asal ahaan dilaaga 9aad ayna sidoo kale yihiin labadooda dadkii oo sida gaarka awoodda ugu sameeyey aabaheeda. wuxuuna xitaa usii tilmaamayaa inay leedahay awood dagaal oo khatar ah. intaa kadibna iyagoo weli dhex socda isla meeshii Katia si lama filaana waxay arkaysaa John oo taagan horteeda, isla markiina waxa uu ku dhufanayaa bir isagoo oo kaliya doonayay inuu dilo si aysan dilaaga u siinin macluumaadkii ku saabsanaa aabaheeda. laakiin mar qura John waxa ka soo horbaxaya dilaagii 47 iyagoo markiiba isku dhex dagaalaya isla meeshii ilaa goobta uu ka kaco dab labadooduna ay ka soo wada cararaan. intaa kadib markii ay banaanka u soo baxaan dilaagii 47 waxa uu Katia u sheegayaa in John xitaa uu ka mid yahay dadkii uu aabaheeda u sameeyey tamarta iyo awoodda, balse isaga jirkiisu uu ku jiro qayb ka mid ah maado titanium ah taasi uu suuragelinaysa inaysan karin xabadda. wuxuuna usii tilmaamayaa in hadda ay ku jiraan ilaalo, yacni ay raadinayaan ururkii Alberto si ay u helaan xogta aabaheeda. sidaa darteedna ay muhiim tahay inay si dhaqso ah uga tagaan goobtan. laakiin Katia oo aan dhinac kala milicsan waxay u sheegaysaa in aabaheedu uu joogo goob ku taala dalka Singapore, sidaa darteedna ay si degdeg ah ugu safraan dhinaca. laakiin dilaagii 47 maanejaradiisa oo maqlaysay hadalkooda isla markiiba waxa ay adeegsanaysaa agenti kale, yacni dilaag kale, iyada oo doonaysay inta Alberto ururkiisu ay ku mashquulsan yihiin labadan in agenti kale yacni dilaag kale uu u qabto howsha. dhanka kale John isaguna waxa uu ku soo noqonayaa hoteelkii ay deganaayeen si uu u baaro, balse mar qura waxa uu qariiradihii Katia ka dhex arkaya in aabaheedu uu joogo Singapore. intaa kadibna waxa uu xogtii gaarsiinayaa urur, iyaguna waxay diyaarinayaan qorshe ah in la dilo Katia iyo dilaaga 47 inta aysan halkaa gaarin. nasiib xumose si walbo ay yeelaan ma awoodayaan ilaa Katia iyo dilaagii 47 ay yimaadaan airportka Singapore iyagoo weliba awood u yeelanaya inay iska qariyaan kaamirooyinka si aysan u qaban. nasiib xumose markii ay ka baxayeen airportka waxaa qabanaysa kaamiradihii ku xirnaa banaanka.
hoteelka. intaa kadib markay yimaadaan hoteelkii ay deganaayeen, Katia waxa ay Dilaaga u sheegaysaa in isla caawaba ay aadaan goobta uu joogay aabaheeda, laakiin Dilaagu waxa uu u sheegayaa inay iska seexanayaan maadaama howsha ay badan tahay. subaxii markuu waagu dilaaco, Katia waxa ay dareemaysaa dhaqdhaqaaq ku soo wajahan dhinacooda, balse daqiiqada kadib waxaa soo weeraraya Mafia ay soo dirsadeen ururkii. nasiib wanaag Dilaagii 47 waxa uu isla markiiba ka takhalusayaa dhammaantooda. intaa kadibna waxa uu Katia u sheegaya inay si degdeg ah u aadayaan goobta uu joogo aabaheeda. intaa kadib markii ay u soo baxaan banaanka, Dilaagii 47 waxa uu soo qaadanayaa daawada naqaska, balse Katia oo aad ula yaaban waxa uu ka doonayay daawada. waxay imaanayaan goobtii dhakhtarka, waxayna Katia in muddaha kadib milicsanaysaa wejiga aabaheed oo aysan in muddo ah arag. isla markii waxa ay weydiinaysaa sababta uu uga tagay uguna qarsoomay, laakiin waxa uu sheegayaa inuu doonayay in kaliya ay ku noolaato si ammaan ah oo la siman dadka kale. sidoo kalena waxa uu sheegayaa inuu u sameeyay tamaro iyo awood dheeraad ah si ay nafteeda u difaacdo. wuxuuna si lama filaan ugu sheegayaa in Dilaaga 47 uu yahay walaalkeed iyada la dhashay. intuusan u dhammaynba hadalka waxaa haddana soo weeraraya koox Mafia ah. Dilaagii 47 isla markiiba waxa uu laynayaa dhammaantood. intaa kadibna waxa uu dhakhtarkii saarayaa gaari si ay goobta uga tagaan, balse nasiib xumo haddana waxaa soo weeraraya koox uu watay John ilaa Katia iyo 47 ay dhammaantood ballaayaan, kadibna ay kasoo baxaanba goobtii oo idil. intaa kadib Dilaagii 47 waxa uu dhakhtarkii u sheegayaa inuu dilay hogaamiyihii ururka ee Alberto, sidoo kalena hadda uu doonayay inuu dilo hogaamiyaha Mafiyada oo lagu magacaabo Anton. laakiin isagoon haddana hadalka u dhammeynin, waxaa haddana mar kale dhex loo dhigayaa kamiin si loo dilo, balse Dilaagii 47 waxa uu soo baxayaa banaanka isaga oo sikamo gudahoodna ku laanaya kooxdii soo weerartay. laakiin lama filaan waxa uu milicsanayaa in dhakhtarka uu lugta ka soo gaaray dhaawac, iyagoo doonayay inay qaadaan. waxa uu sheegayaa in kaliya naftooda ay badbaadsadaan, naftiisana isagu uu ku filan yahay. laakiin intaysan bixin, Dilaagii waxa uu dhakhtarka jeebkiisa ku ridayaa daawadii naqaska iyadoo aysan dareemin Katia. intaa kadibna saddexdoodu way kala tagayaan. in muddaha kadibna markaan waxaan aragnaa ururkii oo ugu dambeyn soo qabtay dhakhtarka. waxay keenayaan qol bannaan ah si ay u weydiiyaan sirta ka dambeysay daawada iyo awooddan tamareed ee uu soo ikhtiraacay, laakiin dhakhtarku waa uu ka diidayaa inuu jawaab siiyo. intaa kadib waxaa haddana goobta soo gelaya hogaamiyihii Mafiyada Anton, isaga oo doonayay in dhakhtarka uu ka hadashiyo, laakiin mar kale ma awoodayaan inay ka helaan wax jawaab ah. in yar oo daqiiqadaha kadib waxaa haddana meesha soo gelaya Dilaagii 47 isaga oo la hadlaya John iyo saaxiibadii. waxa uu sheegayaa haddii ay doonayaan inay helaan mashruucan sirtiisa, in isaga uu soo qaadanayo helikobtar ayna ugu yimaadaan qaybta sare ee dabaqa, laakiin waa khiyaano oo keliya ku doonayay in qolka ay uga baxaan dhakhtarka ayna dhammaantoodaba soo faaruujiyaan. isla xilligan isaga iyo Katia oo ku jiro qaybta hoose ee dabaqa waxay la dagaalamayaan waardiyaashii joogay meesha ilaa uu soo baxo John oo ay is dagaalaan Dilaagii 47. ugu dambeynna Dilaagu waxa uu ku guuleysanayaa in si toos ah uu markaan u dilo John isaga oo qoorta ugu xiraya koronto, halka hogaamiyihii Mafiyada ee Anton isaguna uu dhakhtarkii u soo kaxaynaya qaybta sare si ay uga baxsadaan. laakiin markii ay yimaadaan dabaqa u sareeyay ayna doonayaan inay raacaan helikobtarkii taale meesha, waxaaba soo fuulayay Dilaagii 47 oo ay la socoto Katia. waxay dilayaan ilaaliyaashii joogay meesha, laakiin mid kamid ah ilaaliyaashu waxa uu si lama filaan ah xabad ugu soo ridayaa Katia, waxaase isku dhigayay Dilaagii 47. intaa kadibna labadoodu waxayba hal mar arkayaan diyaaradii oo kor u kacday, iyagoon iswaalinba waxay iska istaagayaan goobtii. waxyar kadibna dhakhtarkii waxa uu jeebka gelinayaa gacantiisii isagoo la soo baxaya daawadii naqaska, laakiin ma oga inay ku xiran tahay bam. markii uu riixo waxaa hal mar qarxaya diyaaradii oo idil, waxaana meesha ku dhimanayay isagii iyo hogaamiyaha Mafiyada ee Anton. isla markiiba Dilaagii 47 waxa uu wacayaa maanijiradii isagoo u sheegaya in howlgalka uu dhameeyey, laakiin maanijiradu waxay u soo diraysaa Dilaa kale si iyaguna uu dilo, laakiin waa goor ay dhammaantiisa ka dhigeen wada rasaas. ugu dambeynna waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanudka mawduuceena maanta. waxaan rajaynayaa in muuqaalka aad la dhacday lana wadaagi doonto ugu yaraan mid kamid ah saaxiibada si isaguna uu daawado. mahadsanid.